horta cilaaqadayda aniga xaaskayga alxamdulilah rabbil caalamiin wanaagsan tahay sanad iyo bar bay igu qaadatay inaan isguursanno oo dib lay dhigayayo marna lay ahaa arrintaa waxba kama jiraan marka horta si aan xaaskayga u guursado kaadideedaan u soo cabbay laba qof waa aad isugu fiican banay alxamdulilah rabbil caalamiin imika ugu dambe mayd maxaa ugu dambeeyay kaa la sii sido karoonuhu markuu dhacayna labada qof ingiriiskanu joognayo dee guri baa lagu xidhay markaa jacaylkaygu zaa'id buu noqday xaqiiqatan markaan imika soo baxayey iyadana daaqad guriga sar baan deganay cimaaradda doorka saddexaad daaqadda iga eegaysa anna hoostaan joogo sidii aflaantii hindidanu saa isu macsalaabaynayna mar dad badan oo jaar oo Soomaaliya baan la degan waxa laga yaabaa in daaqada naga eegayeen iyaga laftarkooda moogta sidaan u socday shantadii baan kala gurayo sidaan sidaa u lahaayaan mashquulsanaa baan madaxa ku dhuftay gidaar agtayda marka alxamdulilah su'aasha igu adag waxa weeye marka la igu yiraahdo imisa xaas baad leedahay ayaa la yiraahdaa xaas kaliya markaasuu yiraahdaa maad labayn markaasaan sidii qof ooyaya adeertaan deeqriya la ku guursaday mid labaad ma karayo adeer iga tahay oday baa igu yidhi adeer imisa xaas baad leedahay markaasaa ku yidhi mid markaasuu yidhi adeer xagga caafimaadka ma dhibaataa jirtaa markaasaa ku yidhi may waan fiicanahay libaax baan ahay libaax matiida bisad baa tahay buu yidhi marka alxamdulilah aad baan isugu wanaagsannahay iyana way dhegaysanaysaa baa laga yaabaa habi bay tahay caajiya waa keligaa weeyaan دكتور علي ما شاء الله ولي waxaa ku caawinaya microphone-kaaga waa microphone cas weey mar kor u taagaysa oo ku arkaysa xajiid ما شاء الله جزاه الله خيرا soo duceeyay إلهي بركة بارك الله فيك معالي الدكتور ومهسني أضحك الله سنة سؤال شكل وحنو قد بيا